yaal aan ciirsi lahayn waday ayaa ku go'doontay badda Atlantikada. Helikobtarada militariga Spain ayaa dusha sare ku sugan weligood maanay arkin wax sidan oo kale ah. Goobta 300 oo mayl xeebta u jirtay ayay ku arkeen meydad badan. waxa uu ahaa xabaal wadareed ka dhacay bartamaha biyaha ama runtii meel aanan la garanayn. waxaan aaminsanahay in rajadoodii ay ku baaba'day badweynta. balse waxaa jiray dad si la yaab leh u badbaaday oo ay ku jirtay gabar 17 jir ah oo la yiraahdo Aisha, waxaana ay xirneed jaakad guduudan. waxaa tartan loo galay badbaadintooda. waa dhammaadkii Abriil oo waxa ay soo socdeen 3 toddobaad. waxaa jiray rag aan kici karin oo oon ba'an uu hayay oo ku qaylinayay, fadlan waxaan u baahanahay xoogaa biyo ah, fadlan qof may siin karaa xoogaa biyo ah. waxaan isticmaalnay kabaheenna si aan u siino xoogaa biyaha badda ah. Aisha waa inan yar oo ka soo jeeda Ivory Coast. waxay u malaynaysay in Yurub ay siin doonto mustaqbal ifaya. 56 qof ayaa horteeda ku dhimatay. 2 maalmood kadib biyihii iyo cuntadii ayaa naga dhammaaday. maalintii afaraad shidaalka ayaa dhammaaday. bilowgii markii uu qof naga dhinto waxaan u akhrin jirnay duco. markii dambe waan awoodi weynay. ma aanan haysan awood aan meydadka ugu tuurno biyaha. xilliga xagaaga ayaa soo dhow. kumanaan dhalinyaro u badan oo ka kala yimid waqooyiga iyo galbeedka Afrika ayaa isku dayaya inay gaaraan Yurub. qaar waxa ay ka cararayaan dagaallo, qaarna dhibaatooyin dhaqaale. xisbiyada populist ayaa waxay aaminsan yihiin in loo baahan yahay tallaabooyin adag oo lagu joojinayo arrinkan. waa musiibo taagan oo si ku meel gaar ah u daboolay Covid, laakiin aan weligeed la xallin. Aisha waxaa gacmo furan lagu soo dhaweeyay Tenerife, haddana waxa ay la midowday Corporal Serena. kuwa badan oo doonta saarnaa maysan helin bilow cusub, taa beddelkeedana dhammaad ayay u ahayd noloshooda. Aisha waxa ay ka mid ahayd 3 qof oo badbaaday. tani waxay ahayd dhacdadii dadkii ugu badnaa ee ku dhintay iyagoo isku dayaya inay gaaraan jasiiradaha Canary. 24kii meyd ee la helay ayaa lagu wadaa in la aaso. kuwii lagu waayay baddana ma helayaan aash sharafeed. Aisha marna kuma fikirin in ay mar dambe qoyskeeda la hadli doonto, laakiin waxa ay samaysay soo kabasho wanaagsan 10kii maalmood ee ay ku jirtay cisbitaalka. welina waxa ay rajaynaysaa inay wax ka barato kana shaqayso Yurub, lacagna u dirto waalidkeed. Corporal Sereno iyo kooxdiisuba waxa ay u ambabaxeen howlgalkoodii tababarka ee xigay, iyaga oo si buuxda u garanaya in xitaa awoodda badweynta Atlantikadu aanay ku filnayn inay joojiso kuwa u diyaar garoobay inay halis u geliyaan